assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo joogtaan halkani waa channelkeena garantiin fadlan daawada dadka cusubtaa channelkan subscribe garay inta aynan guda gelin casharkeyna waxaan u baahanahay inaan idiin soo bandhigo fursad aada u qaaliya oo aan jeclaystay inaan idindila wadaago fursadani waxa weeye kooras cusub oo maxadkeenu bilaawi doono video editor waxaanu socon doonaa muddo ka yar bil taasoo aad ku master gareyn doonto qaybaha ugu muhiimsan ee video editor fadlan daawada haddaad doonayso inaad ka mid noqoto comment inagu soo qor interested si aan kula soo xidhiidhno maanta waxaan idin tusi doonaa laba hab mid uu yahay sidaad u ogaan lahayd computerkaaga connection kasta oo lagu isticmaalay sidoo kale mid kasta passwordkiisa ayaan idin tusi doonaa sidaad ku ogaan lahayd habka caadiga la isticmaalo ee dadkoo dhan inta badan ay garanayaan waa habkan la tegi doono meeshan la yiraahdo internetka markaad tagto halka connectionkaaga computerka laga maamulo waxaad sii dooran doontaa open network markaad tagto waxaad sii dooran doontaa halkay wifi ay ku qoran tahay markaad tagto halkan ayaad ka ogaanaysaa computerkaaga waxa connection lagu isticmaalay marka waxaan eegi doonaa connectionkan imika ugu sareeya passwordkiisa san u ogaan lahayn anagoo adeegsanayna cmd waxaad tegi doontaa computerkaaga halka wax laga search garayo markaad tagto waxaad qori doontaa cmd markaad qorto waxaad ku rangarayn doontaa administrator markaad ku rangarayso waxaa kusoo bixi doonaa boxkan aad arkayso yes ayaad oran doontaa yes markaad tiraahdo halkaas aad joogto command baa lagu qoraa system 32 waa qaybaha computerkaaga ugu muhiimsan folderkaasina hadduu kaa delete garaysmo dhibaato weyn ayaad la kulmaysaa marka commandka koowaad aan ku qori doono cmd-ga wuxuu noqon doonaa kaas oo aan ku ogaan doono computerkeena inta lagu isticmaalay ee connection inkastoo aan hore si manual aan idinku tusay habkanina waa habka kale aad ku ogaan karto saad arkayso intii markii hore uu noo soo saaray ayuunbuu inoo soo saaray waxaan u baahannahay imika inaan ogaano somaliland passwordka somaliland wifi-ga markaa si aan u ogaano waxaan u baahannahay inaan commandkan aan soo qaadano commandkan dheer waa inaad waxba ka tegin oo aad qortaa marka isla meesha ka hooseysa ayaad ku qori doontaa inter ayaad dooran doontaa saad arkayso wuxuu ku yidhi successful marka computerka ayuu nagu save gareeyay folder dhammaystiran oo aan ka heli doono passwordka computerkan aan imika isticmaalayo wifi-giisa marka waxaad tegi doontaa halka computerkaaga local c-ga markaad tagto waxaad arki doontaa folder cusub oo lagugu save gareeyay automatically saad arkayso labadii wifi ee labadii connection ee lagu soo isticmaalay ayuu passwordadiisa i siiyey hadda anigu waxaan isticmaalayaa kay ku qoran tahay somaliland marka somaliland baa inoo muhiima inaan ogaado passwordkiisa markaad tagto editorka doontad ku furi doontaa waxaad anuu ku furi doonaa notepad markaan ku furo saad arkayso qoraalkan ayuu i siiyey laakiin si aad u ogaato waxaad u baahan tahay inaad qeybtan aad timaado passwordkayga wuxuu kugu qori doonaa key material marka passwordka saad arkayso waa kan passwordkaygu marka passwordkaygu wuxuu yahay 1 ilaa 7 iyo 7 kale si aan u jeegarayo inuu saxsan yahay waxaan u baahanahay inaan tago halka connectionkayga laga maamulo open network baan oranayaa open network markaan iraahdo waxaan tegi doonaa halka ay ku qoran tahay network sharing center markaan tago waxaan sii dooran doonaa wifi somaliland markaan sii doorto wireless properties baan oran doonaa marka waxaan sii tegi doonaa security halkay ku qoran tahay saad arkayso passwordkan iyo kii hore aan soo eegnay ee uu noo soo diray cmd-gu nagu save gareeya computerkeena waa isku mid marka habkani waa hababka aad ku ogaan karto passwordada anigoo qaar kalena soo dhigi doona insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu